dhinaca dalka Soomaaliyana ciidamada dawladda ayaa sheegay in isniintii maanta ay ka qabsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab deegaanka loo yaqaano Torotoro oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya. warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Afgooye. ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ciidankan ay gudaha u galeen deegaanka Torotoro kadib markii dagaalyahanada Al-Shabaab ay iskaga baxeen kuwaas oo deegaanka maamulayay muddo ka badan 6 sano inkastoo dhowr jeer oo hore ciidanku la wareegeen balse dib ay u soo faarujiyeen dagaal aan sida u xooganin ayaa aafaafka hore ee deegaankaas ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidanka huwanta ah ee deegaanka weeraray waxaana ugu dambeyn ciidanku isku hareereeyeen guud ahaan Torotoro iyo nawaaxigeeda inkastoo aan la soo warin dad shacab ah oo waxyeello soo gaartay haddana waxaa jira qasaarooyin aan sida u buureen oo soo kala gaaray dhinacyada ku hirtamayay deegaanka waxaana sidoo kale dadka qaar ee deegaanka soo food saartay cabsi xoogan maadaama magaalada ay xaalad kala wareeg ah gashay saraakiisha horkacaysa howlgalkaas lagula wareegay Torotoro ayaanan faahfaahin weerarka ay ciidamadu qaadeen waxaana dhanka kale mas'uuliyiinta maamulka sare ee gobolka Shabeellaha Hoose oo aan la xiriirnay ka gaabsadeen ka hadalka arinta inkastoo ciidamadu la wareegeen Torotoro ayaa su'aasha iminka taagan waxa ay tahay in ciidanku ku sii nagaadi doonaan iyo in kale maadaama dhowr jeer oo hore ay dawladdu la wareegeen balse ciidamadu ay dib u soo faarujiyeen. Abdiwali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.